daawada qaybtan qayb saddexaad wararka caalaa dhinaca dunaasiyada caalamka oo dhan dunida oo dhan daawashana qiimaha badan ee aan ku bilaabo waa kowdii bishii December 2020 oo markii barnaamijkan falanqaynta wararka warbixinada dhinaca dunaasiyada shirkadda Moderna ee dhinaca iyaduna farsamada dhinaca dawooyinka iyo soo saarista talaalada ayaa ku dhawaaqday in 100% uu gaaray waxay ku sifeeyeen baaritaankii ay ku hayeen in la helo vaccine ama waxa loo yaqaano talaal kama damayn ah oo loo helo xanuunka faafaha daran madaxa guud ee shirkadaasi ayaa sheegay inay xareeyeen dalabka ay ku doonayeen in loo ansixiyo ama loo sharciyeeyo in dadka duraan iyagoo ka dalbaday waaxda dhinaca dawooyinka iyo cuntada kantarooshay dalka Mareykanka FDA inay ansixiso 100% wax waxtar 94% waxa weeye ay yiraahdeen in uu xanuunka COVID-19 uu markaasi uu ka hortagayo halka buuxeedeen uu wax ka tarayo halka 100% uu ka hortagayo ayaa lagu yiri madaxa guud ee shirkadaasi mid ka mid ah madaxda guud ee shirkadda FDA ee waaxda dhinaca meelmarinta dawooyinka iyo hubinta Dr. Paul Offit ayaa waxa uu sheegay inuu aad u laf anfiriiray markuu arkay xogta la wadaagay xogtu xog cajiib ah waxaana ina siinaysaa yidiro madaxa guud ee lakiinse dawooyinka u qaabilsan isla markaana kormeeraya talaalka shirkadda Moderna Dr. Tal Sachs ayaa waxa uu sheegay in ay tani bedelayso habka uu xanuunkan adduunka u marmarayo adduunka ayuu marmarayaa ayuu waa markii ugu horeysay ee aan u ogolaado naftaydu inay ooydo ayuu kadib markii aan la qalbi diriireysta markaan aan cilig waayay buu caadifadayda markii aan arkay waxtarka jawaabihii ay istuseen ayuu dadka baaritaanka hayay aniguna gacanteeda ula tagay ayuu waan arkay waan isceli kari waayay ilmo ayuu markaan ogaaday in xanuunka faafaha daran aan haatan ka hortagnay dunidu way ka adkaatay ayuu xanuunkan isla markaana haatan waxaanu kaliya u baahanahay inaan tabceeno sida u dhaqsaha badan loo joojiyo ayuu xawliga faraha badan ee ku soconayo wuxuu sheegay in ay soo saari karaan malaayiin ayuu talaala iyadoo dunida oo dhan loo qaybinayo isla markaana dadka u nugul lala eeganayo in laga joojiyo ayuu xanuunka faafaya ee faafaha daran hagaag daawashana qiimaha badan wararka waxaa dhinaca dunaasiyada haatan Ethiopia ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa khudbad dheer oo uu jeediyay waxa ay taabatay meelo badan wuxuu daboolka ka qaaday sir aad u badan oo dhinacyo badan taabanaysa isla markaana waxa uu tafaasiil dheeraad ka bixiyay faragelintii inta badan aanaysan dawladda Ethiopia weligeed si toos ah uga hadal ee dalkeena hooye ay ku haysay taasoo dad badan iska indhatiriyay cadaawadii foosha xumeyd iyo dhibaatadii loo geystay dadkeena Soomaali galbeed ku dhaqan iyo dadka dawladda dalka dalweynaha Soomaaliya ku dhaqan ee TPLF ay soo doorsan ku haysay waxa la arkayay iyadoo dad badan ay dibinta u qaniinsan yihiin jabka loo geystay TPLF lamana garanayo sababta dad Soomaaliya ilaa xadkaasi ay ugu murqaansan yihiin in ay TPLF aan laga adkaanin waayo lama fahmi karo taas laakiin dad badan ayaa aaminsan inay yihiin dadkii ay tababaratay isla markaana ay maamulada qaarkood u dhiibatay qaarkoodna ay askarta ka dhigtay tuutaha iyo waliba ay siisay darajooyinka ay ku xirlan yihiin haddaba ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa waxa uu qirayaa in Soomaaliya dhibaato gaar lagu hayay wuxuuna qirayaa in dadka Soomaaliyeed hub kale isugu dhiibi jiray wuxuu yiri markii aan u tagay ayuu magaalada Muqdisho xamar si aan u hagaajiyo ama aan bal wuxuun uga yiraahdo cilaaqaadka foosha xun ee khasabka ahaa cilaaqaadkaas khasab buu habaa loo karaa waayo Ethiopia cilaaqaadkii ay la lahayd Soomaaliya 30 sano ugu dambeeyay khasab buu waxaan ahayd dad iyadu meesha geysatay oo meesha iyadu dhigatay in ay ku khasabto in ay jiraan in Ethiopia cilaaqaad la leeyahay gaar ahaan maamulka TPLF balse wuxuu ahaa ayuu mid aad iyo aad iigu adag Soomaaliya kolkii aan tagay waxay igu yiraahdeen idima aamini karno ayuu igu yiri madaxweyne Farmaajo idinka isku kaaya diraya oo qabiil noo kala qaybinaya waa idinka dawladdiina tan maamul goboleedyada noo kala qaybinaysa iska kaaya horkeenaysa diidaysa xasiloonidayada idinka ayaa sabab u ah inaan iscunno isdillo si aamini weyno kala aaminka baxno sidaas la ajiligeed aad ayaan idin nacabnahay waxaa tihiin dad aad iyo aad u xun maamul soo jireen oo markaasi doonaya in aysan Soomaaliya cagaha dhulka ka qaadin ayay ii sheegeen ayuu yiri madaxda dawladda federaalka Soomaaliya oo ugu horeeyay madaxweyne Farmaajo Ethiopia gabi ahaanba waxa ay noqotay meel la oo la karo isla markaana ayuu yiri boog calaamad xun oo ku taala gobolka ayaa laga dhigay ayay ka dhigeen ayuu TPLF waxay aniga ila dhaqmeen si aad u fool xun ayuu sheegay waxay ila dhaqmeen inay aniga handadeen waxaan ahaa ra'iisul wasaarihii dalka ugu sareeyay laakiin maxbuus ayaan ahaa waxay oran jireen ha dhaqaaqin saraakiisha Tigreega ee nabad sugid meel walba iyaga haystay taliyaasha ciidamada kala duwan hogaanada dhammaan sirdoonka iyo cid kasta xataa ku xigeenada hubka
sirdoonka meel kasta oo qof joogo muhiim ah iyaga joogay waxay ugu qaadatay muddo aad u dheer inaan anigu naftayda xoreeyo ayuu sheegay waxaan tagayaa deegaanka Soomaalida waxay ugu dhahaan argixisa joogtay hatagi wal gudlaya ayaga doonaya inay go'aan hatagi ayaga doonaya inay jabhada samaystaan hatagi waxaan ku wuri ma argixisa joogtay haabay dheh waxaan ku wuri maxaa shaqadiina qabso weydeen oo qabqabo weydeen oo aad argixisada aad uga dhigi weydeen kuwa aad maxkamadeysaan anigana iigu ogolaa weydeen inaan shaqadayda qabsado si kastaba ha noqoto wuxuu sheegay in ay hadarta taasi isbedeshay Soomaaliya waxaan u sheegay in aan faragelinta ka deynino in aanan dawladnimadooda faragelinaynin maamuladooda aan u gacan dhaafaynin isla markaana aysan jiri doonin inay ad sabab gelin ka hore gelinka daba yimaadaan ayuu xubnaha maamul goboleedada isagoo sidoo kale hoosta ka xariiqay in ay sii wadi doonaan cilaaqaadka wanaagsan ee leeyihiin dalalka kale xataa wuxuu koonfurta Suudaan fiiri cabasho xoogan ayaa iiga timid waxay si gaar ah uga caawdeen Sion Misfin oo baabiyay dalkooda isla markaana iyaga iska hor keenay bal fiiri dalal badan baa cabanaya ayuu yiri wuxuu sheegay in Ethiopia aysan ahayn goob loo asteeyo shar sida daraadeed wuxuu sheegay inuu dalalka kula noolaanayo isxitiraam isfirgelin la'aan iyo inuu sidoo kale dadka Ethiopiaanka awood ay wada yeeshaan Tigreega wuxuu ku eedeeyay inay awood kaligood qaateen hagaag daawasha raqjama badan wararka waa calaadina cadnaasiyada caalamka dhan ee magaalada Istanbul waxa lagu markaasi qalitaan lagu sameeyay ilmo yar oo 4 lugood lahaa kaasoo la sheegay in 55 maalmood ka hor uu ku dhashay isbitaalka Rajab Tayyip Erdogan ee magaalada Muqdisho kadibna waxa loo qaaday isbitaalka la yiraahdo Zainab Kamil ee caruurta ee ku yaala ay caruurta iyo haweenka iyo caruurta ee ku yaala magaalada Istanbul taasoo la sheegay in lagu sameeyay markaasi qalitaan guuleystay dhaqaatiirta ayaa sheegay in qalitaanka ay ku guuleysteen iyadoo xitaa uu jira xanuunka faafaadaran COVID-19 Dr. Samra Kayetas ayaa sheegtay in ay ku guuleysteen qalitaanka ay ku sameeyeen ilmaha yar Soomaaliga hooyadii Muna Daahir ayaa waxay sheegtay in ay haatan rajeynayso in gabadheeda yar ay caafimaad ku noolaato iyadoo sheegtay in ay dalka Turkiga u timid maadaama aysan haysan ay tiri Soomaaliya dhaqaatiir khibrad leh iyo teknolojiyada loo baahan yahay in lagu qalo Turkiga ayaa bariyaha ugu dambeeyay wuxuu u sameeyay ubadka iyo dhalaanka dalalka muslimiinta ay leecay qalitaano noocan oo kale dowladda Saudi Arabia wasiirka hore arrimaha dibadda ee dalka Pakistan ayaa wuxuu sheegay in dowladda Saudi Arabia cilaaqaad la sameystaa oo cilaaqaadkeeda in la hagaajiyo ay tahay muhiim wasiirka hore arrimaha dibadda ee dalka Pakistan sidoo kalena ahaa ra'iisul wasaare dalkaasi ayaa waxa Shukaad Casiis ayaa waxa uu wareysi u siiyay Arab News wuxuu u sheegay in dowladda Pakistan laga doonayo in cilaaqaadka dalka walaalaha aynu nahay la hagaajiyo wuxuu sheegay in taasi muhiim u tahay hagaajinta dhinacyada oo dhan iyo ammaan soo celin labada dal ayaa cilaaqaadkooda bariyaha ugu dambeeyay dhan u xumaa waxaa la sheegay in cilaaqaadkooda uu ka soo bilowday arintan haatan ugu dambeyn go'aanka laga gaaray magaalada Nature waa xarunta Niamey waxaa laga soo saaray ugu dambeyntii bayaankii dowladda Pakistan ee 2 sano daba socotay ku dhawaad 2 sano ayay dowladda Pakistan doonaysay in bayaan laga soo saaro dalka Hindiya ururka loo yaqaan The Organization of Islamic Conference OIC ayaa waxa ay go'aamiyeen in dowladda dalka Hindiya ay soo celiso qorshihii ay laashay ee ahaa isxukun hoosaadka ee maamulka Kashmir waxaana arintaas ku dhawaaqay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Shah Mahmud Qureshi ayaa waxa uu sheegay in dowladda dalkaasi Hindiya ay haatan wajahayso carada caalami Islaam wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi oo qoraallo istaba jooga barta Twitterka ku soo daabacay isla markaana soo saaray go'aankii wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka caalami Islaami ee 57 ah ee magaalada Niamey xarunta dalkaasi Nature ku shirsana ayaa sheegay in muhiim tahay in la fahmo ayuu yiri in dowladda dalkaasi Hindiya ay haatan adduunka caalami Islaami ay ogaadeen dowladda Hindiya ayaa sida fiinta uga qeylisay go'aanka waxayna ku tilmaantay in dalalka caalami Islaami afduubteen hal dowlad oo ay ku la jeedo dalka Pakistan waxayna sheegeen in arinta propagandada iyo kasoo horjeedintaanka abaabulka ka dhanka ah dalka Hindiya uu yahay mid faragelin ku ah gudaha dalka Hindiya isla markaana xumaanaya cilaaqaadka Hindida ay yiraahdeen iyo caalam Islaami hase yeeshee dowladda dalkaasi Pakistan waxay ugu baaqday dowladda Hindiya inaysan iska dhagamarin bayaanada caalam Islaami oo ay iskaga baxdo ama ay soo celiso oo ka dayso dhibaatada iyo in ay wax ka bedesho marxaladda ay yiraahdeen dalkaasi ee ku taala dalkaasi Hindiya ee haystaan ee gobolka Kashmir hagaag dawasha qiimaha Iran taliye kale oo ciidan baa laga dilay iyadoo oo la sheegay in dilka taliyaha uu dhacay goor sii horeysay oo ahayd markii ay sii caraabaysay maalinimada Isniinta waxaana sheegay in howlgal ay ka qayb qaateen diyaarado drone oo la garanayo cidle ay dileen taliye sare oo ka tirsan ururka kacaanka ilaalada ciidankaasi ee loo yaqaan Quds taliyahan ayaa leedahay General Muslim Shahdan ayaa la sheegay in isaga saddex ilaaladiisa
lagu dilay xuduudda dalalka Ciraaq iyo Suuriya waa dilkii loo geystay sarkaal labaad oo sare oo dalka Iran ka tirsan Iran ayaana ugaarsiga lagu hayo ilaa iyo hadda aan jawaab degdeg ah ka bixinin iyadoo sheegaysa inay ka baaraandegayso jawaabaha ay bixinayso dowladda dalka Iran ayaan cidna ku eedeynin dilkan u dhameeyay waxaana sheegaya in sidoo kale uu cabsi xoogan ay ka taagan tahay hadeerto taliska iyo saraakiisha sarsare ee dalkaasi Iran maleeshiyaadka tikreega ee hadeerto baxsadka ah ee TPLF ayaa iyaguna waxay sheegeen in ay dagaal dib ugu soo qaadeen qaar kamid ah deegaanadii laga saaray waxayna sheegeen in dagaalo ku dhufo ka dhaqaaqa ay ka wadaan deegaanada qaarkood hase yeeshee afayeen oo hadlay dowladda dalka Ethiopia ayaa sheegay in aysan waxba ka jirin in ay kooxdaasi ay weerar soo qaatay afayeen u hadlay kooxda ayaa waxa uu sheegay in ay weerar dhowr ku qaadeen deegaano ay kamid tahay deegaanka Aksum oo ay sheegeen in ay qayb ahaan galeen isla markaana ka hor intaan laga saarin ay qabsadeen laakiinse dowladda dalka Ethiopia ayaa sheegtay in hawlgalkaasi uu dhamaaday wax dambe oo ka soo naascadaadayna aysan jirin hagaag daawashada qiimaha leh dalka Azerbaijan dib ayay u galeen ciidankoodu gobolka Linchin ayagoo 28 sanadood ka hor kadib loo ogolaaday in ay lagu wareejiyo kadib dagaalkii lagu kala adkaaday goobihii sida rasmiga ah ay u soo wareejinaysay dowladda Armenia ayaa kamid ah waxaana muddo ay sugayeen maadaama ay gobolka iyagu haysteen qayb kamid ah in dadkii halkaasi Armeniyaanka ay doonayeen inay qaxaan si kastaba ha noqotee war qoraal ay soo saartay dowladda dalka Azerbaijan ayay sheegtay in burburka deegaanada ka muuqdo dhan ay kaga argudo doonaan dowladda Armenia inay dhul dheeraad kaga qaataan oo ay lacageystaan dhulkaasi oo lacag lagu xukumo bedelkii ay dhulku bedeshaan arintan ayaa carab baahsan ka dhalisay dalka Armenia iyo dowladdiisa la filaya iyaduna inay isasisho soo dhaqsaha badan si ay wararku sheegayaan gobolka Arizona ee dalka Mareykanka waxa uu shahaadadii guddoonsiiyay guusha goboladii uu Trump iyo uu ka qudareynayay in wuxuu uga soo naasacdaadaan ayaa ugu dambeyntii waxay sheegeen in Joe Biden shahaadada gacanta ka saareen waxa ay sheegeen gobolka Arizona oo gudoomiyaha gobolka uu yahay jamhuuri halka xogayaha gobolkuna uu yahay dimuqraadi labadaba warmurtiyada ay soo saareen iyo saxiixooda ayaa waxay siiyeen shahaadada guusha ee doorashada Dr. Joe Biden oo ay sheegeen inuu soo guuleystay governorka gobolka Doug Ducey ayaa yiri halkan doorashan ku sameeynaa mar walba waxayna u dhacdaa si wanaagsan doorashada tanna waxay la mid ahayd mid wanaagsan ayuu sheegay isagoo markaasi u qusgoonaya Mr. Trump oo qudareynayay in maadaama gudoomiyuhu uu yahay xisbigiisa bal in uu ka dhursugo bal inuu wuxuun u ogolaado ugu dambeyntiina qodobka ugu dambeeyana madaxweynaha dalka Turkiga waxa uu soo dhaweeyay Prime Minister ama ra'iisul wasaaraha dalka Ukraine oo tagay dalkaasi labada dal ayaa cilaaqaadkoodu aad iyo aad u sii balaaranaya barihii ugu dambeeyay iyadoo dowladda dalka Ukraine ay doonayso inay tobanaan diyaaradaha Bayraktar iibsato ra'iisul wasaaraha dalkaasi Denis Shmyhal ayaa waxa uu tagay caasimadda dalkaasi Ankara wuxuuna barsa Twitter-ka ku soo qoray in cilaaqaadka labada dal uu sii baahayo isagoo sheegay in ay dhisi doonaan miisaan siyaasadeed oo gacanka badda madow ee Black Sea la yiraahdo tan ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo loolan adag ee dowladda dalka Turkiga kula jirto dalal isbahaysanaya iyadoo ay dhankeeda ka raadinayso isbahaysi daawashada qiimaha badan intaan ku joojiyay wararka oo caalamka dhinaca dunaasiyada tan iyo inta saarki doono amaanada